أنا وناكسن ميل كستو أدونك كتشوكتان هالكاني وكفتنكي سياسة إيو الحراري هدبا الحراري ميل بدن أيو وحو كغشيكيا أما هاتو السياسة أما وحيالو دعيبا هاتي كفتنك سياسة بل هدبا الحراري أيان ددوينها الشعب كآتك وحيسيا كفتنك السياسة وكلا بحيا بل الحراري كفتنك سودة way aad baa maasantahayaan yaasinow dad fara badan oo daawadayaashana oo barnaamijkan ku xidhanna mar kale ayaan saaran halkan uga soo gudbinayaa waxaan iyagana aan mahad ballaaran u soo jeedinayaa wariyaasheena inooga soo warrama gudaha Soomaaliya iyo haddii ilaahay ku rayahay wadamada kale ee Yurub iminka Soomaalidu kulligood waa wariyaal Soomaaliyeed يقول ده وري تيم وري قارة ما تشرو وتشرو ركوكو صورة وري كيكو صورة ما وري أيه ككل هذا حتى ورم يككو ورم مالك كل تاجن ووري هيه لكن ورياش إنه نقيني بروفيشنال كا معها أنا كل مكان كهذا وورياش إن سيدا خاص مجا برنامج كان كفتن كسياسة ده وغيب قاطع ورك وسوق ده وصح وايه هي waxa laga yaabaa yaasiin waan ka or daaranaya barnaamijkeenan bini aadan baan nahay sometimes khalad baa iman kara khaladkaana waynu saxaynaa sax barnaamijka kan ku xiga ayaynu saxaynaa sax dad badan baa barnaamijkan u arka inaynu qola gaar ah toocsanayno ama gobol gooniya aynu raadinayno dadna feedback-ooda waxa jawaabaha ku soo qoraan marka maxaad gobolkayga isba waxa soo sameeyay aad u sheegay anaguna barnaamijkii kama wada gaarno inaan goboladii dalka goboladooda wada tagno waa yahay aad baad u mahadsantiin feedback aad naga siisaan barnaamijka waa sax waa yahay barnaamijkeena markii hore waxa aad u daawan jiray ragga imka xilligan lagu jiro dumarka ugu badan dumarka laftiisa waa daawada dumarka waa siyaasadda waxa iyaga wax xiiseeya haye jabka ragga jecelin marka ragga wada fashilmay inay daawadaan ayay jecel haye waa yahay waxaan ka bilaabi doonaa magaalada Muqdisho dawladda federaalka ee Soomaaliya haye waa yahay bismillah dhawaan madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo wafdi hogaaminayo oo kamid yahay wasiirka arrimaha dibadda Yusuf Garaad ayaa booqasho ku tagay wadanka Turkiga booqasho rasmi ah haye heshiisyo ayaa soo kala saxday waana soo nabad noqdeen oo saas waxaan eegi doonaa markaa inagoo inaga barnaamijkeen wax ku saxnaaday dhinaca protocolka dawladnimo marka dawladdu ay dhoofayso ma iska halaanbeeba mise waxa weeye habkii dawladnimo ayay u socotaa ayaa ka muuqda haye habkii dawladnimo dabihii loo mari lahaa marka la dhoofayo weli protocolkii aad u khaldan haye dawladaha ugu itaalka yar leh ee caalamka ka jira ayaynu ka sii hoosanaa haye shaxaadka bahalka la yiraahdo ayaa isaguna dhibaato ku haya dadka dhoofaya ee dawladda airport baa la isku qabsanaya iyadoo kameradii shidan yihiin idib ku dhib ma aan soo noqdo ma haysa dollar iyada shilinka idib ma ogta okay meelo aan la ogolayn wafdigu markay dhoofayaan dawladda xagga protocolka haddii gate-ka ay ka baxaan cid dambe oo shicba oo daba ordi karta ma jirto haye haddii cid aan la garanay ay geed ka dhaafto simple madaxweynaha waa la dili karaa waa khatar markii aan daawaday haddii ilaahay ku ran yahay videoga markii ay dhoofayeen waxaa ii soo baxday in madaxweynaha dawladda federaalka uu nabadgelyadiisu halis iyo risk u yahay ay ku jirto khatar weeye videoyashan dadka tusi doonaa waxaan kaloo ku tusi doonaa protocol xumada ka jirtay aan ku bilaabo marka hore wasiirka arrimaha dibadda Yusuf Garaad oo shir jiraayad qabtay haye ayaa shirka jiraayad u qabtay marka ugu horeysaba waxa weeyaan macluumaad badan ba mu hayn shirka jiraayad marka qabanayso wuxuu ku fiican yahay in waxa aad ka hadlaysid aad information fara badan aad ka haysid haye dabeetana aad warkii akhrid haye madaxweynaha iyo anagu waxaan u dhoofaynaa Turkiga haye waa la arkaa in diyaaradu ay Turkiga u socoteen Turkiga raadad maxaa kaloo dheer haye heshiisyo la soo gali doonaa haye كل شاه يكفي ماشي ما تكتينه وحدو تجي سينو هشيسية هشيسية محيين مركب حشية إن أي روفيان مانت
كلية مدحينه هي أو تركيا وصعدان هي أنت أصلا information معلومات كمتشرو دبعته يثبت وهرو هاجري تفتريه إذا عدى BBC ده أيه ولوحه هستا قل كيرا BBC ده إنه هرتاجية هي مركز هذا الذي يسوع دبع السنان يدور نمو كم موقته وحموتشنا يا أمر كتاجلين قل كي BBC دي أنت وكويستي أو فرطة ضدك كلاه الله سي هذا على ذلك وكذا خلط كيسي هاي يوسف جراد ولي جد الدولة مش شغال ولي قبل مش شغال دولة مش شغال مركا وحور دمبيسي جمهورية ديمقراطية الصومالية أيوة هكذا الله مريو أي برجع ضعف مركا صار نقضي كميل قاعد يصمرتي فدرال بيصمرت وحصلوا يوسف فوقوي يوسف كسد البودي هي مركا حرت هكا أن خاصو وابسكه هلمان يدل مال جمهورية فدرال كي جمهورية البلاد واحد لاعب لبكو حكتها يعني حاول كي مركب بيلعبوا أيوب هالمروح أورنيا وأن وحوي سي وحن ندوف الدونا وطن كان تركيا مدحوينها الدولة الفدرال وريا محافظة يقصد تاجي صابر ووضيع العادية ما مركز بقول كي تقول كي BBC قول كي BBC وجوها أي مركز شوها أرنكاس عند دونا عند تصو يوسف ومركز هرنا خلدية جمهورية الديمقراطية الصومالية حلقة كونها دولة الفدرال الصومالية ما أنت دوفيس مرنا دبوفس نما ورن كرنو كبوذ يعني فرتك صوفيقي كسر هذا الواحد جونا البركة إن أمجيو داردها آذن عبد الله عثمان آذن عبد ما أنت وحى حكم تبو في يوم مدحونا جمهورية الديمقراطية الصومالية هلا هذا ما أنت وحى حكم تبو في يوم مدحونا جمهورية الديمقراطية الصومالية هلا هذا وحى حكم تبو في يوم مدحونا جمهورية الفدرالية الصومالية وحنا ورصاحبي أديك الفري واي فرتي وسو تاكتي ما ملا كاميرا صارن ورصاحبي أديك الفري واي فرتي وسو تاكتي ما ملا كاميرا صارن والله بالله عليو wax laga shakiya adiga laftigaaga fartaada isu taagtaagis farta sama farta shaki badan bay leedahay numaraad waxa loo xibbi si soo shaqeeyno ba waxa daasa tiraadi ayaa saha waya Yusuf Grad oo ka gudbay airportki ayaan ku daawsiinaya sida loo soo maro waliba laba jeer baan ku celinayaa si aad u fahamtid wax meesha ka jira marka ugu horeysa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yusuf Grad ayaa marka diyaaradda lagu sii dhow yahay nin baa ka daba imanaya ninku lacag buu ka soo saaraya jeebkiisa la arkayo dabeetana wuxuu u dhiibayaa Yusuf Grad baa lacagta ka qabanaya isagoo reer magaalada ninkan kale u sheekeynaya ayuu jeebka ku ridaya waa ajaayib dabeetana ninkii baa dib u noqonaya oo iska tagay hawshiisa ugu dhameystay lacagtii uu gaarsiiyay Yusuf Grad sax lacagtii baynu ka faaloonaa marka maxay tahay lacagtu maxay tahay Yusuf Grad ninkan kagama soo tagin lacag uu ku dhoofo oo jeebkii dawladda ayuu ku dhoofiyaa ma baahna lacagda uu ninu keenay waxa sax maxaa maanta talo ma xaqal salaama حق سلام يوسف لما سيسين كرو إنه يوسف سيابه سيا نكا حق سلامي ورد سيا دوفي لعقت الواقع يعني وانا كان لي بروتوكول حمضة هل كان إن العقل يسوق على هرت معين ما بقى حين بقى العقل هذا من أهل نمو هي ميد والنمو هاي حتى الباب كدم يو صار ولا فريستو كراس ترى إن هل كان لسكوش حاضر أم حل سودي ولا صح لعقت بقى كفكري هي واسحبار أيوة ما ودع أنت بقى وتودت كساريبة قف بالغالي وبدفع عادي وأنا عجايبة هي هلا يا ابنو إذا عبد القاسم أي عبدك الحنباري أي وفدي كسر سو دول المال كوربشن مال كورتينا كوربشن كيف ايربورت كيف كسمينها هي لفت جدي دول لفت جدي هو طلع لك القاضي ايوه صوت ما تقرا ان إلى عبد القاسم أي وفدي كسر waxa ku jiray saddex qof ama shan qof oo inta wafdiga lagu daro hadhow magaalada hoos galay bariga 5 kun baa laga qaadan jiray madax haduu qaal garoodi hadda waa qaali lacagta 7 kun waxbay ayo waa qaali weey ayaa laga yaabaa wala turkiga lagu gaarsiinay markaa Washington DC loo jooga ayaa laga soo rogay
intaan garanayo 4 qof oo isxambaara oo la socday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Ali Geedi meesha waa laga dhirgi wasaaradda arrimaha dibadda Foosiya ayaa iyadana marba 5 qof raaci jirtay orolo sisaarti mid isu Soomaaliya kaga dega mid lana kaga dega ya markaas xambaarkaas bal aynu daawano horta iyana lacagtaas howlahaas ka socota meesha ياي ولا شو ديبيا تنو عده بروتوكولada ولا عسي بروتوكولada aan jeclaan lahaa inaan saxo waxa weeye madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo inta badan marka ay waxaaskiisa la socdo uu ka dheereeyaa xogaa waka horbooda islaantii lala kacay xitaa war ma hayo miina ku qarxaya askari qabsataya dib u eeg maayo ilaa diyaaradda horteeda ayuu ku sugaya ayuu sii daynaya markuu diyaaradda tagu dib u soo eegaya gabadhuna dee kabadhaa dheer waxba gashadan aayar bay socotaa waxaan ku tusayaa marwada kowaad oo iyana la shaxaadayo airportka intay soo dhaaftay diyaaradda agteedii ayaa wiil dhalinyaro ka daba imanaya madaxweynuhu arkayn ayuu gabadhii isku duubayaa leeyahay dib diyaaraddan intay u jirtaa inna lillahi wa kana idibtan waxay ku fiican tahay xagga transit qolka in lagu moogta in halkaas lagu soo bixiyo waxay soo bixinayaan bal gabadhii iyana aan eegno mar kale min laba jeer baan ku celinaa horta si dadku fahmaan smart ariid waa khatar kari eeg uu ka daba yimi waa ka garabka qabsaday idib kamarada waa la jaray taxri waa khatar weey tari marka shahaadku waa sahlan yahay hadii wadaada lala kaco nis qarxinaya ku yimaado odaygu ma oga wuxuu sii socdaa diyaaradda odaygu inuu talaada wuxuu gaara gacanta qabsada Obama wuxuu sameeyaa oo deeyo waliba gaara Obama wuxuu sameeyaa hadii jeer xaaskiisu xaqaata mara gaaban marka airport diyaaradda helicopterka waxa leedahay dabayl marwaxadeedu marwaxadaas gabadha feeydi karta ma ogtahay waa xarif marwaxada isaga soo dhiga marka inta gabadhu jaranjaro fuulayso si marada aanay u feedin ayuu ilaalinaya dhowr jeer baa CNN-ka lagu amaanay arrinkaas ilaa arrimahan ku hadlayno waa arrimo khatar weyn laga hadlo hadii jeer oo furan moogta marka protocolkii dawladdu horta halka ayuu ka xun yahay okay waxa la tagay Turkiga baan eegi doonaa Turkiga waxa ka dhacday iyaguna wafdiga la socda dawladdu dhalinyaro fara badan oo iska an experience way aragnimo lahayn ayaa raacaya sidii ciyaalkii ayba marka ila wafdigu marka heshiisyadii wixii dhamaadaan waxa la sameeyaa tour waxa loo baxayaa dalxiis ba meel la soo tusay sida waddanku u dhisan yahay waddanku ku socdo baabuur baa la saaraya lagu sharfayo calanka Soomaaliya uu ka taagan yahay inaga bay noo soo waramayaan halka aynu marayno waa buurta la ilaahay bila waxa weey bridge ka sida loo dhisay eega madaxweynuhu waa la ogyahay meel marayo kuwana soo gudbinaya marka waa wafdigii dawladda oo wariyaal isu bedelay dhalinyaro ciyaara inuu ka gaarsiisay Facebook Snapchat iyo Facebook iyo Twitter iyo wixii oo dhan baa waalanaya iyo wata intaasa ku jirtay dawladda federaalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markii uu looleynayay wuxuu yiri waxaan control doonaa diyaaradahan madaxweynuhu iska raacaan hadii jeer ee la iska dhoofiyo ee kharashka iyo lacagta iyo culayska faraha wadata ayaan joojinaya gabigeeda markuu madaxweynaha noqday farmaajo wuxuu bishiiba saddex jeer uu dhoofay madaxweynayaashu isaga laftiisa bishii ugu horeysay saddex jeer dhoofay waa laftiisiiba inna lillahi wa inna bal markuu sidaa lahaa aan dadweynaha iyana aan tusno waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo wakhtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waa caado xun maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto maaha madaxweynaha inuu
bishiiba 3 jeer baxo ma aha saas darteed waa in la joojiyo dhaqankaas عليه ده وحش ده أنتنا ورنا عجيب وين يا أنتوا ليه هاي توصل بيسمله يا وتغيبسكي وراء كل شيء ديارة الوراء حمل لقوا مر ديارة هنا تكفل فوشي المويان دي بيها يكون سالو أركب الحنو وكل نقطة لفتيسو دوفك هايري دوفك سكيري وين كل جد مني أيه وياه أن هاوس ما توفر بلانته أيه waxaan tagi doonaa marka hore watii heshiis ay wada galayeen ahlu sunna iyo galmudug dowladda xamar baa la watay oo arrin fiican haddaan maqashada jir wala heshiin waayahay lama heshiin waa lagu kala tegay final waa lagu kala tegay ajaayib haya sheekh shaakir oo ah madaxweynaha ahlu sunna wa jamaa yaasiinow ayaa wuxuu ku leeyahay arrinkii waa lagu kala tegay markii la heshiin waayey doorashadan waa tii la yidhi xoogaa hal la sugo bal inta heshiisku dhacayo waaya maxaa lagu heshiin waay taw waxaa lagu heshiin waayey baasha waa la isu cadaystay si fiican baa la isugu cadaystay si fiican baa la isugu cadaystay qabyaaladdan idaacadaha un laga daayin bay leeyihiin xagga hoose oo dhan gunta laga goyniyo ayaa gunta laga jaray marka inta dadka xagga hoose seef lagala dhaco ayaa la leeyahay ha hadlina dadweynaha u gudbinina wixii jiray laakiin now وشيقنا نقول شغلنا هي واحد شيخ شاكرو ولدينا حرطة أهل السنة والجماعة مدحوينها هيكسنين هرت مدحوينها ما لبا مركل لبدين اللي سكوهين دريو لبضع عيدان يلا بضع بارلمان وإحنا ولا سكوش عندنا اللي سكوش دريو حصية شيء قولوا بس كده ولا سنية مدحوينها قلمدوا بس كله يوم ما له مدحوينين ما له هي خير لوس مرة ما له حدي الله markaas sheekh shaakir baa yiri waayo waxa la yiri idinku waxa qaateen wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka halkaas ku leeyahay Yusuf Garaad ayaa ka soo jeeda qoladan dhusmareeb marka qolada gaalkacayo madaxweyne xaq u leeyahay marka wuxuu dastuurka dhigaya in reerkiinu haddii meel ay ka matalayaan federaalka ma geli karaan maamul goboleedyada xagee ku taala sharci waa la weyn waxa dhacaysay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Hirshabeelle isku reer baa isku reer waxa dhacaysay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo maamul goboleedka madaxweynaha Puntland isku reer baa marka lagu ma oran karo dawladda federaalka ayaa jagada haysataan oo reerkiinu jagadaas ma qaadan karayo wax qaldan weey ahlu sunna wa jamaa iyagoo ciidamadoodii madaxa ku duubtay fooxina u shidan yahay ayay dareereen فوحي مع البحر هي dabeeto qolada galmudug ayaa aad u xanaaqday in shirkii halkaa ku baabaay marka lama doonin in la dagaalamo madaafiic la soo qaatay dagaalada si kale ayaa loo dagaalamay jimcihii ina soo dhaafay wax fooxshatay galmudug ma jirin ba digri iyo foox iyo wiigi dhaweyd mamnuuc baa heshiiska sugayeen waxa hadii heshiiskaas dhaco fooxina iska shito durbaankiina iyo wixii garaacda galmudug dawaa ka soo horjeestay fooxa wala joojinaya bay marka argixisii waxa lagu oranayaa oo halis bad galaysa hadda fooxshiid shirka isna halka waa dhicsoobay waayahay no an waxaan tagi doonaa waynu yara boodboodi doonaa bal waxaan geyn doonaa meesha la yiraahdo hadii ay ku ran yahay Puntland waayahay horta waxaan ka horeysiin doonaa al-i'tisaam kooxda la yiraahdo culimada la yiraahdo ayaynu waan u soo noqon doonaa waxaan tagi doonaa xingolo meel la yiraahdo xingolo intii abaaruhu ay jireen oo dadku dhibtoonayay oo la dindhimanayay oo xooluhu ay baqtiyeen ayaa yaasiinow dawooyinka waxa siinayay laanqayrta cas ee Ceergaabo Red Cross Somaliland ayaa u soo gudbinaysa dawooyinka Somaliland baa dawooyin fara badan soo siisay cusbitaalka xingolool iyo MCH kii meesha dhan dawooyinkaas bilaashka dadka loo siiyay si dadka dhimanaya loogu taakuleeyo kulligood waa la iibiyay dawadii dadka buka la soo qaada la iibiyay dadkii bukay waa laga iibinayay iyaga laftooda laga iibinayay dadka shubanka ku dhaco kuwa sakraadka ah ilaa aad farmashiga xingolool ka iibsatid ama cusbitaal waa iib barwa dhibaatay lacag baa laga sameeyay
waxa uu soo gudbinayay Soomaaliland haye halka tacab khasaar ba ka dhacay ayaa ka dhacay haye dadkuna haddii aad dawo bixiso dad wax bixiso wuxuu baahan inaad guddi kale oo xisaabiya aad ka daba dirtid wixii soo xisaabiyo soo ogaaday meesha dawooyinkaas iyo taageerada la siiyay dadka waxay ku maqan yihiin kooxda la yiraahdo al-i'tisaam ee wadaadada waliba halka waa joogan meel walba joogan ودكين منكا راوشك قابله والله بحي الساعدون بالحق الاعتصام الاصلاح وجروبيو جروب ولا واحد فرتين اكونت لعقت لغا سو شبه قطر كويت امارات iyo sacuudi arabia akoont kooda lacagta ku soo dhacda cid kala xisaabtanta ma jirto dabeetana dadka qaarna dawooyin bay u xisiyaan dadkii aan ku haboonayn qaarna waxay siiyaan dawo laga siibinayo waaye taasna waa taa haye diinta islaamka ummadda oo dhan ayay u dhaxaysaa marka dadka doonaya inay gooni iyagu wakiil uga yihiin diinta waxay mudan yihiin xisaabta in la xisaabto cibaadadu nin walba ilaahay baa kule meesha laakiin xisaabta inaga dhaxaysa aniga igu khaldi maysid kooxda iyo kooxa kale oo waddanka laga mamnuucayba dib baynu u eegi doonaa waynu ka gudbaynaa qodobaan al-i'tisaam iyo xingalool baynu taabanay wariba waxaan ku tusayaa magaalada Hargeysa dad xanuunsan oo dawo u yimi oo qolo carabi tiri dawooyin baan siinna ayaa istaadumka Hargeysa lagu balabiyay ka dhaasa laga saaray dadki dhingida iyo laadka dumarka ku dhacaysa iyo sida loo dul marayo ruuxa dhibaatada haye bal aan inta samar hore dadkii oo lagu tumanayo waa dadka xanuunsanaa goormu dhakhtarkii gaaraya goormu gudbi karaa albaabka dhaaf kara bal aagada inta gudbitay inta lagu tuntay dumarka fiiri dadkii oo istilay oo ku boobaya dhaqaatiirtii stadiumka Jimida Hargeysa Soomaaliland waxaan aad uga xulnay dadkii oo soo daadanaya dhaqaatiirta soo isbuulanayo dadka caafimaad badan iyo baahi badan iyo abaaraha iyo waxyaabaha ka jira awgeed aad baan uga xulnay intaas ay kala soo daayay intan waa ina xanuunsatay oo qaadatay xoog baan ugu galayaa xoog waxaasoo dada oo kiyuga ku jira oo qaar dhacayaan qaar kufayaan waxaasoo dawooyin iyo u baahan yihiin iyo cunto dadka lagu balamiyay meesha waa ka kuwaasina askartuna waa laynaysaa ilaahay u sahlo waxay dadka in la register gareeyo la sii qoro maalmo ka hor intaan dhaqaatiirtu iman sida u kala ildiran yihiin number la siiyo leen nidaam la sameeyo qof walba balantiisi ku yimaado intaas u baahan وطاولي أقون دردنا هاي أقون درد وادبات ما لها نقدم به مجال هالبيسة وحرية كل سوي درسني قدوم ياشا حسبي هذا معارضك صح يكون محافظك وحرا لبا بان كسق على دون هي قدوم يا حسبي كل مية مسبحي أيا وحو هذا لا هذا كتوري حرسي هي ولا سدكت هي حرسي وحو كليه من كفان بدن هو يمدرن هي لو سنوات بلا سو شقي oday adeerkii silayo
مركزون نبأ سقط لاعب وين أيه بل موصورته إنه داورنا هذا الذي وما ذكرني هذا بل ويا بشوف سرور بالليل لابد من الجامعة تكبر ولا من روحها وزير كم أول مرة هذا هو الوجود أول ما تشيله أول ما كبيره أول ما تعرف السياسة تسوي الوضع والظروف كعب فرايا وكعب فرايا قبل ما نسافر يصير وما تشيل هاي الوزير كروها قبل جود فان هالشباب يبغى شاشته هياي موسى يركب وادري يركب قراءة سماها بل وحن أجد ما سجنا حرس وحكلية سجنا موسى وحد وحكو صبرته ملعمد السيلايو وين مركوذ الشرني أنا باش وكا قد به هذا كل عظم هذا ساقط باتها ليش ودك قد بكرر وداعيا هذيك خلاص هذا سجنا إنه حرسنا داون وقت سياستنا موسى فيصل يقول رجال ويوفر وشالنا موسى وقال كفتمين ما أنت أنا فيصل واحد كفتمين مركا فيصل هيو عرها يسكت مدرسة فيصل ما كشف هاي فيصل حوار معي لكن موسى يسكت مدرسة هاي مدرسة سينايو ويسأل عروش يقول حكم ترى مدرسة سينايو حكم ترى أنا كمان كتلي شيء مالك عليه ترى المعلم waxaan ku kaftamaya oran maayo fagaaraha ayaa aad u turaya saaxiibada komishin oo shalan ahaan jiray marka waxaan leeyahay madrasada hadiya jeeraale waa la isku soo gaaraayo ana 10 sano ku jiray isla soo daro oran maayo uu saaxiibay uu ku yara raago quraanka ku adkaado weli ku jiray anigu se qalin jabiyay aan soo daayay la xisoo ku tuuray يا وقصدي لمن كسيدا سجراعي يا دمر حق بسنة سلا ورمشي بلا كذا وضياش محيس أو هذا وهذا السلام كل يلا بها وبين بينا ودك كل تصير بس السلام أيام كنت سيا مركلة ولا سلانة ويسوديبي سلانة صوت ما صعون هنا أيه واحد ويا مركا يعني دورش على صوت دورش الشدي بعد نور بإسرائيل أدينا عكسه بحث دورش هذا السومالان إلى هل أرن العضو ولي لما صار على الكرم مصبيحي أو الشجع عنده كورة تشيني قدوميها كل مية وين الشجع ومد إرو وسيقول أسئلة أو برلمانك iska casila oo yiraahdo xisbiga mucaaradka baan madaxay murashaxna waanahay ayaa isna muhiim sheego weys adeeyo labada mid wali lama sheegin labadu waa qarsoon gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa waxa la doonayaa in muusabix wuxuu doonayaa in kaahin inuu dhiibo in kaahin haduu dhiibo koox fara badan oo reer burca ama beesha sidaay ka soo jeeda ayaa jabaysa oo galaysa wadani haduu sheegade waa sababtu uu wareegayo burco waxay doonayaan reer burco ama aan beesha madaxweyne sidaay ka soo jeeda in uu dhiibo maxamed xaashi halka ku tuuro oo laga dhigo gudoomiyaha laga dhigo intuu wasiirka si future-ka dambe isagu soo ordo madaxweyne isu sharax haddii ka laga dhigana koox kale oo reer burca ayaa iyana ka jabaysa oo wadani galaysa marka xisbigii wadani ayaa moodaa Muuse Bixi dhinac waliba u darantay hadduu ina kaahin u dhigana qayb baa gooday haddii uu u dhiiban ninkana qayb baa gooday marka maxamed xaashi baa wuxuu yahay doorku ciyaaraya inuu ama noqdo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ama uu noqdo waa xisbiga kulmiye ama uu noqdo inuu ka iibsado Faysal Al-Waraabe حسبي الحسبي يسوي الإيديا لما ذاك الحكي دويه يسوي الإيديا يسوي كائب سدو أيه ودو ده وهذا هلك صباح مركا إذا لبده سبا أسلان oo gudoomiyaha uu sheego gudoomiye ku-xigeenka ku kadhigayo Muuse iyo Cirro oo isna ka tanaasula oo jagadan kale ee baarlamaanka ilaa labadaas ay sidaas sameeyaan wali way laalantahay qodob kale oo muhiim ah ayaynu halkan ka sheegi doonaa wanagi nidhi hore arrin cilmi sayniska
ayuu ku ribaday Muuse Bixiyo meel uu carbohydrate ku sheegay macdan ayaa jirtay ayaa hydrocarbon ayaa marka waan ka gudbinaa tii oo kala mid ag ayaan toddobaadkan la kulmay maadaama aqoontiisii tijaabiyey maxsuulka cusub soo saaray guryaha waxaa la silicon waxaa laga helaa Hindiya iyo Ethiopia qura waa 250 gram inta siday boqolkeeda gram waxa weeye $15 $250 gram xisaab adugu jawaabtu waad haysataa waxaan ugu faraxsanahay ardayda daad mareed inay ka faa'iideystaan waxbarashadan hore waxa lagu soo caawiyay laascaanood waxaad uga codsanaya idinkana inaad beer darayn waqtiga macalinku idin siinayo inaad waqti ka faa'iid nin taliye ciidan oo ciidanka Soomaaliland ka tirsan ayaa wuxuu leeyahay waxaan soo helay xuriyo la yiraahdo silicon marka dugsi buu ku wareejinaya wasaaradda waxbarashada ee daadmareed gobolka la yiraahdo nin waxa la yaabanahay macallimiintii iyo ninkii iskuulka haystay iyo wixii waxbarashada oo dhan ayaa ninka korneelka ka qaadanaya alaashi uu keenay hadiyada wuxuu leeyahay halkii garaamba $15,000 ayaa boqolkii gram $15,000 ayaa la siiyaa waxaan idinkan 250 gram oo de noqon karaya ilaa $40,000 Mareykanka inna lillahi war waxaantay waxa laga helaa siliconka buu ku leeyahay meesha la yiraahdo Ethiopia iyo hadii ilaahay ku reeyahay India arrintan aad u yahay silicon horta marka la soo gaabiyo curiyahaasi waxa loo soo gaabiyaa SI وعلامته وليه وعريها أفريقيا مركب عرياش كميستري اللي هذا وسديدي صدق كانوا نمبر 14 وحقوق السماء سيليكون دايكسيد سيليكون كاربايد مثل الصوريوم سيليكيد وأنتوا أوصي قيب سماء قيمها أينو إيقدونا قيمها ويلشني $20 ويبقول كي جرام وحوي بير باوند كونتون $1 ayaa la siiyaa waxa uu leeyahay waa curiye ka abuurma kuleylka dhulka dhagxaanta hoostooda ka abuurma waa solid ma aha liquid waa adke oo waa dhagax wuxuu ka yimaadaa waa leeyahay qorraxda iyo xidigaha waa ajaayib maxaa laga faa'iidaa waxa laga sameeyaa computer chip ka maarta la geliyo telefoonada waxyaalaha electronic device oo dhan ayaa laga faa'iideystaa galaasyada muraayadaha tan iminka aan gashanahay oo kale ayaa laga sameeyaa waxa laga sameeyaa hadii ay ku reeyahay dhinaca dhismahana horta koladana waa laga sameeyaa waxa laga sameeyaa concrete shubka waxa kaloo isna loo adeegsadaa bricks jaajuurka Soomaaliya isna waa loo adeegsadaa waa construction dal buu leeyahay dhagaxaas warbahalkiyo maanta de macna kale loo sameeyo oo iskuuladii waxbarashadii ay hadana shacabka tumayaan oo leeyahay silicon waxa laga helaa Ethiopia iyo hadii ay ku reeyahay iyo India oo qaaliya 25.7% dhulka hoostiisa ayuu ka sameysmaa kuleelka dhagxaanta sax is in everywhere aduu ku dhabu yaala marka ciyaarka inta waxbarashadii waa laga wareeyay in laga lumiyo ayaan aad u la yaabana waxaan eegaynaa roobka iyo qabyaaladda Soomaaliya roob badan baa daayay nimco afar badan baa Ilaahay u shubay dadkii gobol kasta nin waliba tuuladiisii yaasino roobkii ka daay ayuu u soo gudbinayaa Facebook soo dhigay walaal ma sha Allah halkaas roobka marka roobka boqol ka daay intaadan ogaan ayaa reer Laascaanood iyo reer Burco waxay ku wareereen roobkii eerida ka daay adoo moodi halka qodin roob ka daay ayaa ninkii reer Boqol mar dambe soo dhigay Facebook marka roobkii wad moodaa qabyaaladda Soomaalidu ay gashay ummadda Soomaaliyeedna annaga way noo siman tahay Soomaaliya oo dhan nimcadii ka daada iyo magaalo kasta waxaan tusaale kale u soo qaadan karaa magaalada aan joogno ayaa nin ku dhintay baa leeyahay dhawaan dabetana ilaa u naxariisto xabaashi baa laba nin la yiri ka soo qayb gal laba nin oo dhalinyara xabaashi bay ka habsaameen aaski waxay tageen meeshii inta la aasay ninkii ayaa laga dareeray nin kala Soomaaliya ayaa lagu aasay dabetana aaski bay ka qayb galeen ciid lagu raweeyo markii hawsha la dhameeyay ay mid dadkii eegeen midba ka garanayaan cid dadka ka garan waayay nimanku bay walaal waxay weydiinay ninkan aan aasnay ninkii reer hebel miyaan ahayn marka nin baa yaabo yiri maxaad u jeedaa yani nin reer hebel aan u nimay aaskiisii idinkiina waa idin garan laanay marka ninkii de maxaa waaya qoran waa ninka dhintay marka nin baa hadloo yiri adeer
nin meeyda oo dhintay reerba ma iska taga barnaamijkeena maanta intaas ku soo koobiya xal aad iyo aad ay mar labaad iyo mar saddexaad ba u mahadsan tahay halka aad nagala socoteen waa kaftankii siyaasadda wayno iyo wiiga dambe iyo cali xaraare waa nigo yaasiin ducala xaniitaya sida iyo nabadgelyo